qisadan waa mid ka mid ah qisooyinka ugu soo jiidashada badan waxayna ku saabsan tahay hooyo muslimad ah. Hooyo muslimad ah oo qurbaha ku nool ayaa waxay ku fikirtay sidii ay carruurteedii ugu badbaadin lahayd fidnada gaalada, maadaama ay ku nooleed qaaradda Yurub. Waxay xaajigeedii u sheegtay carruurteeda inaysan gey doonin iskuullada gaalada. Nasiib wanaag waa uu ka aqbalay. Carruurteeda waxay ku tarbiyan jirtay qaabka loo weyse qaato loona dukado. Mar kasta ay wax u baahdaan waxay ku dhihi jirtay soo weyse qaata oo 2 rakcadood sunno ah dukada. Kadib Alla subxaanahu wa tacaala weydiista wuu idin siinayaa. Carruurteedii bay gurigeed ku haysan jirtay qur'aanka ay si fiican u bartay, misena gurigeedina waxay ka mamnuucday TV iyo wixii la mid ah. Kadib ayaa xaajigeedii geeyey carruurtii dugsi qur'aan. Inta aysan carruurta ka soo laabana dugsiga ayay cunto intay u diyaariso ay qolka ugu soo xirtaa. Markay yimaadaan ayay ku tiraahdaa gaajo ma idin haysaa. Markay haa yidhaahdaan ayay ku tiraahdaa soo weyse qaata oo 2 rakcadood sunno ah dukada. Kadib Alla subxaanahu wa tacaala weydiista. Markay salaada ka baxaan ayay ku tiraahdaa Alla subxaanahu wa tacaala wuu idin siiyey, qolkaas gala ee cuntada cuna. Waxay sidaas yeeshaba mar kasta ay ka soo laabtaan dugsiga, maalin ayay u weyday cuntadii ay u diyaarin jirtay, oo xaajigeedii ayaa raashinkii la soo daaqay. Inta ay dukatay ayay qur'aan akhris iska gashay, oo waxay go'aansatay inaysan carruurteeda been u sheegin, ayna iskaga aamusto ilaa xaajigeeda cuntada ugu keenayo suuqa. Haddaba iyadoo murugaysan ayay carruurta dugsigii ka soo laabteen sida caadada ahayd. Intay soo weyse qaateen oo 2 rakcadood dukadeen ayna du'aysteen bay qolkii raashinka ugu barteen ay durbo ku kala carareen, mise raashinkii ayaaba dhex yaalo. Haddaba markay aragtay carruurteedii oo cuntadii qolka ka helay ayay sujuud la dhacday oo rabbigeed u mahad celisay. Ogaada walaalahayga muslimiinta ahow inuu Alla subxaanahu wa tacaala uu yahay ar-Rasaaq. Qofkii xaraggiisa si fiican u qabsadana uusan marnaba dhibaato la kulmi doonin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa ayuu meelo badan oo ka mid ay nooga sheegay. Walaalayaal, haddii aad nagu cusubtiin nagu soo dhowaada oo fadlan subscribe inoo saara. Haddii aad hore noola joogtayna aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay oo like inoo saar. insha Allah soona dhowaada Ramadaan mubaarak. Ramadaanka Ilaahay Ramadaan khayraysan Ilaahay ha nooga dhigo. Ilaahay dembigeen ha wada dhaafo, dembiga waalidiinteen iyo dembigii muslimiinta Ilaahay ha wada dhaafo. muslimiinta qalbigoodan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha isku furo oo Ilaahay ha isku xiro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.